السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada youtube channelkayga Sharaw FX magacayga waa Xasan Nur. Maanta waxaan rabaa inaan ka hadlo halka waxaan ku sameynayaa fiidiyoogii labaad ee part 2. Part 1 wuxuu ahaa uu ka hadlayay ku saabsanaa market structure market structure. Part 1 hore ugu soo hadalnay oo waxaa ugu soo hadalnay haddaa soo daawan kun boqo sababtoo ah ma fahmi doontid hataa kaas soo fahmin. Marka kaas waxaa ugu soo hadalnay everything oo kan ugu hadli rabno kaliya kan analyzing lagu sameyna oo wixii aan isla soo sheegnay aan isla arki doona insha allah. Marka waa muhiim kii hore soo daawo, sidoo kaleeto kaliya ha iska daawanayna nuud ka qaado. kan marka part 2 noo noqdona insha allah. waxaa kaa codsanaya youtube hataa ku cusub tahay inaa videogan noo like karaysid, comment nagu soo dhiibatid oo waa inoo dhiirigelin intaas. sidoo kalete inaa kanaalkana subscribe saartid naa kaaga mahadceliyeyna. Also wixii uu free ah yacni caawinaad free ahne hadaa u baahan tahane waa ila soo xiriiri kartaa. descriptionka waxaa kuusoo dhigaya insha allah contactigeyga, telegramkeyga insha allah. telegram general leeyahay kaas waa igala soo hadli kartaa. marka inaa xoogaa waqti dhumayna marbi videoga hore ka geli doonaa insha allah. bilis marka waxaa mar labaad kaasii codsanaya insha allah videoga hore inaa kasoo daawato sababtoo ah kaas ma fahmi doonto. hadda marka waxaa kasoo hadalnay hore waxaa kusoo hadalnay market structure part 1. part 1 wuxuu ku saabsanaa kaliya theory-ga iyo waxyaabaha. waxaa kasoo hadalnay inuu saddex u qaybsamay. saddexda u qaybsamay muxuu ahaa inuu market structure-ka inuu qaab u dhismo waa order flow buy ahaan ama loanka ama isha buy inuu aado suuqa ama ahayn inuu suuqa ranging kale ama correction waxa la ama sideways sida u taqaanid. sidoo kaleeto ama inuu sameeyo sell inuu sameeyo ama bearish inuu sameeyo. so marka suuq wax kaleeto ku duwan ma arkaysid. saddexdan face oo sameeyaa face waa isha waa buy, facena waa correction ama sideways ama labada dhinacba ma laysku marayaa la dhahay oo sellers badanna waa ku jiraan buyers badanna waa ku jiraan hadba dhinaca la wadaa. marka waxaa qurux badan kan inaad ka fogaatid mar walba inaad trendiga trade garaysid. trendiga hadduu buy yahay inaad suuq buy ka raadsatid, hadduu trend sell yahay waa inuu suuq sell waa inaad raadsataa. marka kana waa bearish ku tilmaamnay, kana waa sideways, kana waa bullish. intaas haddaa isla garanay waxaa jira marka suuq saas u samaysmay ma jiraa dhahnay oo hoosa iska caadiya ma jiro. maadaama na jirin marka waxaa jira la waxyaabo badan oo inaad ku kabaysid oo jiro. marka laba nooca u kala qaabna saan oo ahay oo expectation sida laga rabo waaye, qaabna wuxuu ahay yacni liquidity fara badanaa la kala qaaday oo saan camal u soconay suuq saas camal u soconay oo reality ahaan ay ahayd. marka intii isla fiiriyay inaa wax kaleeto ka fiiri doono ma jirto insha allah. lacagta joogna waxaa waaye GBP/USD joognaa ama GU daas. marka waxaa sameeynaa insha allah intaa soo sheegnay waxaa ka sameeynaa time frame-yada. hadda waxaa joognaa weekly joognaa. weeklygaasa waxaa weeklyna waa ka sameeynaa, sidoo kaleeto dailyna waa ka sameeynaa, and then 4 hourna waa ka sameeynaa, sidoo kaleeto 1 hourna waa u tignamaya. intaas anaga badan. intaas haddaa isku xirtid weekly, daily, 4 hour, 15 minute na usii degtid oo intri ka raasatid suuqaas waa haysaa. ma karatay order flow suuqaas waa haysaa. order flow maxaa lahaa order flow yoona wax kale kula naqanin suuqa meesha u socdo biaskiisa waa ama bias maxaa lahaa ama order flow waa isku mid. suuq buy ma u socdaa mase sell u socdaa mase correctiona lagu jiraa. intaas haddaa soo cadaysadid way ku caddaa inaa intira qaadatid way iska fududaa oo aaday u fududahay. laakiin suuq dhibaato waxaa ah suuq inaad kasoo horjeesato oo suuq buy ah laga rabo inaa sell usoo gasho, suuq sell laga rabane inaa buy u gasho.
markaas waxaa kasoo horjeedaa suuqyaa kasoo horjeedaa trendigaa kasoo horjeedaa mar walbana lacagtaada meeshaasay ku gubanaysaa. ama suuq oo saa u socdaa waxaa ka raadiyeysaa bay iyo wax alnaa ka raadiyeysaa ama seenaa ka raadiyeysaa. suuq ilaa intaa uu ka jebiyo ka sug oo trendi fiican ka yeelanayo. ama bay ha u jebiyo oo trendi qurux badan oo wax nadiif ah qaado. laakiin mostly boqolkiiba waxaa la dhahaa 80, حتى سديته وانا قصي كلية أنا بقول كيف سقاشر عليه لا لا بقول كيف سديته حلا سوقه وأنا سكته وي بقول كيف حلا باتن كسر حتى محا مركا execution كوي أو باتن كاس execution لكن أنتو كده ما يصيرنا إياه ما دام بالعادنا عاد خدنا إنه حرنتاي أو emotion كين هاي ها و سديتك أي واحد مسوي كرنا سديتك مسوي كرنا oo 20 execution ka raadi karno anaka dhankeena ahaan 80 execution oo ah 20 kaas ay isugu tahay soo qasigoon dhameystirmo intigeeda ku wada ixtiraamin oo wax ka dhiman yihiin waxaa dhahaysaa waa gelaysaa qalqal iyo waxyaabaha ku furmay mar walba oo intriga waxyaabaha ama balaankaagana galaaftid waa mar walba oo emotionkaaga haa yahay oo waxaa samaysa xataa ma garanaysa. So marka jihada guud analyze marka weekly joogno oo analyze jihada guud sameyno haddaa bigger picture haddaa fiirino oo suuqa isku keeno suuqa waxaa arkaysaa inuu musil asiga dhan ku jiro wax la dhaho sideways muxuu ahaa seel oo ka imaada laakiin seel markuu ka imaada suuqaasi dhan wuxuu ku jiraa jiho oo seel oo nadiif oo toosa ma la dhihi karo laakiin seel waaye laakiin sideways ahaan waaye oo si fiican kan marka loo cunay toos ma iskaaga sii bixin tan waa lasii laabtay usoo kan markaas saan la sii cunay intaan yariska oo soo dhaqaaqay toos ma lasii laaban hinjiyo iska sii galay suuqa marka waxaa rajeynayaa insha allah inuu sameeyo wuxuu sameynayaa marka lowga ugu dambeeya waa kana iyo haygiisi lowga ugu dambeeya waa kana lowga waa lasoo cunay oo lowga waa lasoo cunay maadaama lasoo cunay wuxuu u dhexeeyaa marka rinjigan iyo rinjigan u dhexeeya suuqa waa bearish laakiin hadda wuxuu ku jiro waa maxay rinjin oo ku jira ama retracement ku jira retracementigaas maxaa marka wuxuu sameynayaa laba mid oo sameynayaa labada mid oo sameynaya waa maxay wuxuu ma soo buuxiyey 50% kan oo highga ma soo buuxiyey nosar 50% oo soo buuxiyey premium ma tagay premium maxaa la lahaa laba mid ku kala sheega intana waxaa la lahaa premium kana waxaa la lahaa fiidiga horena waa kasoo hadalay premium inta gaduudka waa premium intana waa discount premium discount maxaa laga kala wadaa premium discount mar walba suuqa premium waa laga seel karayaa mar walba seelaa laga raadsadaa suuq oo premium joogo baya ka raasdiya haddaa dhahay xoogaa dhibaatay noqonaysaa sidoo kale suuq discount joogo seelaa ka raadiya haddaa dhahdina asigana dhibaatay noqonaysaa waa inaa ka raadisaa suuqaas waa inaa kaliya jiha baayaha ka raadisaa intaas waa sharciga ugu horeeya suuqa marka maadaama sameeyey maadaama soo qaaday maadaama soo qaaday also haygaas kaleetana oona qaadin oo rinjigan ku jiro hay ma qaadinaya sorry hay ugu dambeeyey low ugu dambeeye maadaama uu kan yahay premiumna la tegey premium waa laga soo sili karayay maadaama laga soo sili karay waxaa la rajeeyaa marka inuu suuqa sameeyo waxa la dhaho waa inuu lugan target waa inuu ahaadaa lugan target kor ma noqonaya suuqan lugan kor mee la sameeyey 2022 yaa la sameeyey 2022 sanad 2 sano xataa bay ku qaadanaysaa ama sanad way ku qaadanaysaa ilaa intaa inta ku tago so hubidhowna waxaa ma salkareynana jihada guud oo sida caadiga ah waxaa waaye targetka selay sheegaysaa markaa bigger picture ka fiirina waaye bigger picture maxaa waaye yani jihada ugu yimaad markaa fiirina waaye so waxaa sameeyaynaa marka waa soo dhaweysanaynaa maadaama soo dhaweysanay seel oo ku jira dhahno samahayn maadaama seel ku jira waxaa dhahaynaa marka
lugtaana maxay ahayd? lugtaana lugti oo retracementiga doonata waaye. retracement maxay ku doonatay? qaab oo correction ay ku doonatay. maxaa sameeynaa marka? qaabkaas correctionka maadaama ay ku doonatay waxaa dhahaynaa eh, oo premium tagtay oo soo dhacday oo la rajeeyo loga in la qaadi doono. loga in la qaadi doono. kana maxaa u samaysanaynaa marka? retracementkana waxaa u samaysanaynaa waxa la dhaho waxa la dhaho range u samaysanaynaa oo u kala waxaysanaynaa suuqa inkastoona looyo la qaadin oo kan haddaa dhahno kan oo kaleeto haddaa dhahno looga ugu dambeeya waa kan. kan maadaama lasoo jebiyey shifti oo sameeyey shifti oo meeshan ku sameeyey shifti oo meeshaas ka sameeyey anten kadib suuqa oo iska sii baxay oo wuxuu aaday isnina buluug cagaar iga dhig shifti oo sameeyey maadaama shifti sameeyey loogoo sameeyey waa kana oo saatana kadib loogu ma loo soo dhawaanin anten kadib loogaanoo sameeyey shiftigaanoo sameeyey suuqa rinjigana u dhexeeya rinjiga u dhexeeya maxaa waa labadan rinji labada rinji labada rinji u dhexeeya ma kala sawiranaynaa rinjigan iyo rinjigan. kan waa maxay? meeshaan waa liquidity. meesha waxaa yaala liquidity ataalo rinjigan labadaas rinji u dhexeeya marka waxaa saaranaynaa bdrga saaranaynaa bdr maadaama saaranay mar walba maxaa dhahna bid premiumkana waa laga sel karee disconna waa laga sel karee so maadaama bullish ahaa laba mid ay noqonaysaa suuq waa inuu marka kan soo jebiyo kadib kan maxaa dhahaynaa kan shifti oo sameeyaa dhahaynaa oo shifti toosa u qaadanaynaa suuqana wuxuu u jihaystay jiha seeleh oo waxaa la taarget garaynayaa looga hadda uu soo sheegaynaa la taarget garaynaa adhaynaa markaas maxaa ka raasinaynaa suuqa jiha oo seelah laakiin shiftiga maadaama leeki ku jiriyey maadaama uu ku jiriyey leekan ku jiriyey hadda ku jiro weekly rangigan kan ku jiro kan waxaa dhahaynaa weekly range also logani waxaa waaye weekly range labadaas weekly range u dhexeeyo intana noo tahay meeshaana noo tahay premium meeshaana noo tahay premium halkan maxay noo noqonaysaa disco soo maaha maxaa sameeyey marka logii loo soo dhawaaday oo maxaa soo dhacay move weynaa soo dhacay oo hayga maadaama la qaaday suuq waxaa la rabay 50% inuu inta imaado ka hoos premiumka laga sel kare meeshan ka sameeyo laba midaa la sameeya marka laba mid oo sameeya suuqa marna wuxuu sameeyaa deep retracement suuq saan u socdo kale kasoo qabo oo saan u socdo rinjiga waa kana soo maahan break structure meeshan uu ka sameeyey deep retracement oo soo qaataa kadibo suuqa bay aadaa ama ma sameeyee wuxuu sameeyaa shifti oo sameeyaa shifti markuu sameeyo suuqa selkiisa iskaga soo socda ama intaas ma sii sameeyee wuxuu sameeyaa liquidity ahaan oo qaadaa logan kadib isla markii markuu qaado baygiisa loo sii socdaa oo shifti ahaan aa loo qaadaa okay intaas waa isla karana marka maadaama uu sameeyey discount joojiyo waa baya ka raadiyeynaa ilaa 50% ka imaado laakiin wanis baygaan raadiyeyna waxay noqonaysaa inuu kaliyaha bay wada kor wada aado oo ilaa haygan aanu target ah hadduu sameynay intaas oo kan soo jebiyo hadduu aas wuxuu u qaado liquidity ahaan u qaado isagana baya ka raadiyeynaa scenaarioga saddexaad oo ka fiiriyana maxaa ah inuu sameeyo inuu toos u wada jibiyo
kadib suuqa seel aado oo seel u garaacno. Saddexda scenario anoo banaan. Intaas waa islehaynaa soo maa? intaas waa islehaynaa okay. haddaa waxyaabo kalead ka fiirsanaysidna waa gooni. Kanoo kaleeto markuu soo jebiyay, kanoo kaleeto waxaa dhahnaa breaker block. Hadda red ICT waxyaabaha hataa ku direed gelis also meeshana fair value cab uu noo sheegayaa. lugtaan way soo dhacday, discount uu joogaa, discountkaana waa laga direed garayaa oo baya sameeya. week ugu dambeeyey muxuu sameeyey? bullish uu hayfiyo sameeyey. intaas haddaa isla garanay, kan naga tir, kan naga tir. suuqa waa bullish. la jihada guud waa bullish, laakiin leekan ugu dambeeyey waa bearish. waxaana geysaa marka one day ninkii, one day ninkii, one day markaana geysid muxuu sameynaya marka? one day wuxuu sameynayay suuqa buy maadaama uu socday, muxuu sameeyey? shifti meeshaas ka sameeyey. kadib shifti maadaama uu sameeyey, wuu iska soo dhacay oo ilaa wuxuu soo sameeyey si sigsago kusoo baxay. sigsaga ilaa weli low ma noo sameyn. haddana hoosoo soo aaday. kan low ma noo samayn karaa maya, weli low ma sameyn. mar walbo hayga waxaa noo ah kaasaa weli hay noo ah, weli low ma noo samaysmay. kadib wuu soo dhacay, kadib meeshaan wuu ka sameeyey and then wuu soo dhacay. kana waxaa leenaha marka labadan low, lowgiis iyo lowgiis oo kaasa iyo lowga. intaas markaa dhahno still suuqan waa retracementiga oo dhibka uu soo doonanayay. retracementigana waxaa dhahnay saddex scenario ay ahayd. midna inuu liquidity ahaanka u qaado oo suuqa baygiisa iska qaado oo targetka meeshan la aado. midna maxay ahayd? midna waxay ahayd inuu sidiisa iskaga baxo suuqa oo targetka kan ka dhigano. waa labadaas baya jirto. seel markaa ka raadina maxaa waaye? seel marka kaliya ka raadi karna maxaa waaye? marka oo suuqa seel jihada isku wada bedesho ah ka raadi karnaa. laakiin hadda mar walba isbon maadaama joognay, mar walba waxaa ka raadinaa geed. marka ranjiga oo dailygaas aa sawiranaynaa. ranjiga dailyga waa kasa. haygiisa ranjiga haygiisa waa kana also lowgiisana waa kana. suuqa kii hore bulsho ah soo maha, kan beerisho noo sheegaya. maadaama uu beerish noo sheegayo, BDI-gayna saaranayna. mar walba BDI-ga sababta u saarana waa maxay? meelaha ka baay karayaan. meeshaan bayma ka raadsanayna mase sela ka raadsanayna? suuqa maxaa ka raadiyona? bayma ka raadinayna mase sela ka raadiyona? mar walba intaas fahmi kartid. muxuu sameeyey marka? suuqa wuu soo dhacay, lowgan uu noo sameeyey. lowga midkoos horta lowga ugu dambeeyo oo la jibiyo waa kana. sidoo kaleeto markuu jibiyo kadib lowganuu sameeyey retracementiga doontay. retracementiga still waa suuqa sel waa soo maahan. dailiga sel uu sheegayaa. premiumka marka la joogo maxaa ka raadiyeynaa? maxaa ka raadiyeynaa? sela ka raadiyeynaa. sel maadaama ka raadiyeyna maxaa dhahaynaa marka? sel maadaama ka raadiyeyna waxaa dhahaynaa kaliyaha midkaa ka raadi karna maxaa waaye? suuqa discount oo weekliga joogay. discount oo weekliga jooga. dailigana premium weli xataa premium nadiifa ma laga haayo oo 50% kaliya oo ka kormaray. maadaama laga haynin suuqa still buy waa jihada guud, laakiin dailiga wuxuu noo sheegayaa sell noo sheegaya. okay, intaas misla faacnay. kan waxaa noo sawiraysaa, kan waxaa noo sawiraysaa daily range. daily rangegiina xakee waaye? daily range waa inaad isku xiri kartaa weekliga, dailiga iyo 4 hour. waa inaad isku xiri kartaa intaba, waa inaad isku xiri kartaa. okay, labadaas xabo daily range noo kala yahay. intaan liquidity fara badan ayaa yaalo oo ilaa kasoo bilaabato inta ku keen ilaa meeshaas liquidity fara badan taal oo wax structure walba waa la clean gareeyay. fair value gapkaas waa lasoo clean gareeyay. also fair value gapka kaleeto waa lasoo clean gareeyay. waxa kale ahaa dhiman waxaa fair value gapka kaleeto. fair value gapkane
waa la kelin kareeyey haygan liquidity-gana in la qaado intaasaa hartay. Okay, kana waa liquidity waaye. muxuu sheegayaa marka dailyga muxuu noo sheegayaa, weeklyga buy uu sheegaya, laakiin dailyga wuxuu noo sheegaya sell uu sheegayaa soo maha. Okay, intaas daas la fahnay. Andin kadib waxaa u degeynaa degeynaa 4 hour. Videoga I think inuu dheeraaday. Videoga I think inuu dheeraaday. Marka maxaa sameynaa marka suuqa waxaa sameynaa suuqa wuxuu ku socday sell ku socday, sababtoo ah mar walba jihada daily way iska dhow yihiin iyo 4 hour-ka way iska dhow yihiin oo sell ku wada socda. intaas u dhexeeya kadib retracement dib liho doonta. dhibkaas maxaa waaye يعني 50% loo joogaa mase meeshuu joogyo ayna ogaana rabnaa. kadib waxaa raadiyeynaa meeshaas waxay noo tahay break of structure oo laas lowga lasoo jebiyey. break of structure oo ka sumeeya break of structure kaleeto maxaa waaye waa kan also break of structure kaleeto meeshaan ka samey maya. break of structure-radan waxay ku sahlaysaa order flowga suuqa inaa fahantay. break inta low waaye inta hayga ugu dambeeyo samaysay waaye uu soo jebiyey. markuu soo jebiyey lowgaan uu sameeyey haygaana ugu sarreeyo dookan jebiyo oo suuqa sellers uu iska wixiyaa dhehayna oo bayro isku bedel, laakiin ma sameyna intaas. markuu kan abuuray andii kadib la soo daabtay hata wuxuu u dhexeeyaa labadaas range marka labadaas range waxaa kala saaranaynaa. range waa daily oo noo saarnaa soo maha. range kaleetana meeshaana saaranaynaa oo 4 hour rangegiisa waa kana 4 hour rangegiisa waa kaasa asigana PDR yaa saaranaynaa. PDR aa saaranaynaa 4 hour kan muxuu noo noqonaa marka haya 4 hour range kanna waa daily range noo yahay 4 hour range noo yahay intaas isku kale. premiumna sidoo kaleeto dailyga midka ahaane waxaa la joogaa maxaa la joogaa premiumaa la joogaa also discountaa la joogaa. intaas isku qabo 4 hour-ka marka waxaa la joogaa 4 hour-ka discountaa la joogaa sidoo kaleeto premiumna daily waa la joogaa. intaas haddaa isku haysid intaas haddaa ii haysid yaar okay. dailyga marka dailyga maxaa ka fiiriyanaa dailyga 4 hour xagga ka fiiriyanaa 4 hour-ka retracement haygiisa iyo lowgiisa waa kana retracement oo dheer oo sameeya marka retracement oo dhiiba sameeya. retracement laba nooc oo kala dhacaa. labada nooc oo kala dhaco maxaa waaye inuu retracement lacala kasoo qabo suuq seel ku socdo kaleeto retracementiga ilaa inta u dhexeyso kusoo laaban karaa soo ma. inta ku dhexeyso badi muslim wuxuu kasoo laabtaa premiumka kasoo laabtaa at least 50% uu inuu buuxiya. midna 50% ma buuxiyo intoo ka laabtaa. midna saas ma sameeyee dhiib oo galaa ilaa intoo kusoo laabtaa oo premium laga soo sel karayaa. labadaas wuu samayn karaa. midna ma samayn karee wuxuu sameeyaa another scenario kaleeto sameeya oo markuu saan dhaho kadib saan oo sii sameeya kadib saan oo sameeya. kan maxaa dhaynaa marka kan ma dhihi karno structure weyn oo sameeyey oo kana waxaa ka dhiganaynaa dhow kana waxaa ka dhiganaynaa high kana liquidity ahaana oo noqonaya. kadib suuqa seelkiisa ku socdaa oo meeshaas ajaniska soo raadsanaya. okay, retracementiga dhibka oo 4 hour-ka sameeyey maxaa marka 4 hour-ka retracementiga dhibka sameeyey meeshaan bulishka ka dhisan maxaa waaye waa liquidity ama bulishka maxaa waaye 50 minute iyo 1 hour marka u tagto oo bulishka isku bedelaya. laakiin sida caadiga maxaa waaye sida caadiga suuqa sell waaye. laakiin meeshaan oo kaleeto marka ka raadsanayna 50 minute marka u degnaa sell abay ka raadsan karnaa. laakiin
officialka sida caadiga German rally ah soo socda suuqa seel ka soo raadsan lahaa suuqa jihadiisa wada guud waa seel for hawarka oo leekan retracementiga waa ka faa'iideysanaa retracementiga maadaama ka faa'iideysanaa luguga time frame-yada awdiga luguga time frame-yada maxaa ka raadsanayna marka yaho oo baayaha ka raadsanayna laakiin 50% ma noo ahano anaka long term ma noo ahan maadaama long term noo ahaynin waa inaa ka faa'iideysanaa mar walba haddaa ilaa premiumkana suuqa ka tegaa waa suga haddaa dhahdid eberay noqonaysaa marka qofku waxay ku xiran tahay scalper miya afar qaybaa loo qaybiya afarta qayb loo qaybiya maxaa qof inuu noqdo scalper inuu noqdo qof inuu noqdo scalper waa mid also qof inuu noqdo day trader qof kale waa inuu noqdo swing trader qof kale waa inuu noqdo position trader afartaasaa lagu kala qaybiyaa scalper waa maxay scalper 1 minute uu ka trade karaya oo suuq 1 minute uu ka trade karaya day traderna maxaa maalinkaasuu ka trade karaya swing traderna maxaa isbuuc halka trade u qaato hal isbuuc iyo waxyaabahaas oo haya position traderna maxaa waxaa bilooyin oo haya even sanado xataa haya waa investmentiga caadiga oo ku noqeyna waayo investmenti caadiga ku noqeyna intaas hadaa isla fahanay marka waa inaa retracementiga dheeraado waa inaa ka faa'iideysan karnaa oo haddaa dhahno every noqonaysa also marka markuu sameeyo skillkan hagan confirmation maahan oo structure fiican ma sameyna haga structure yar maadaama uu sameeyo structurekiis weli still nadiif maaha meesha marka premium maa la joogaa liquidity oo qaadi still anaka confirmation oo saxa ma hayn confirmation saxa maxaa waaye hadduu shifti sameeyo suuqa shifti markuu soo sameeyo shifti intuu ka sameyso ma still anaka ma dhihi karno liquidity ahaan oo xisaabinayna wareegga labaad oo sameeyo kii sameeyo break structure-ka sameeyo aan maxaa dhahaynaa suuqa markaas premium ma ina saarano aan meeshaan kasoo raadsanayna trade kasoo qaadanayna laakiin confirmationka saxda hadduu break inta shift ka sameeyo break structure meeshaas ka sameeyo meeshaan shift ka sameeyo BDR haddaa saarano meeshaan oo kaleeto still liquidity ahaan wuu ka dhigi karaa oo suuqa wuu iska sii bixi karaa marka trade hadaa qaadanayna 50% maxaa waaye risk waaye laakiin hadduu liquidityga hadduu structureka hadduu sii jibiyo suuqa jihadiisa guud waa sell oo suuqan waa 90% intrigan labaad qaado okay videogan oo dheeraaday marka waxaa leenahay maadaama meeshaan joogiyo kadib 15 minute oo tegay 15 minute moo tegina videoga I think maqsaa oo socdaa xoogaa oo socdaa wallahi insha allah 5 minute 15 minute ka luqsiina siga jihada oo 15 minute ka xagee waaye big picture no fiir kan muxuu sameeyey break structure sameeyey meesha shift ka sameeyey shift toos ama dhihi karno shift toos sababta u dhihi karo waa maxay shift toos waxaa u dhihi karin meeshaan structure weyn ku jibin structure weyn hadduu ku jibi lahaa shift oo sameeyaa dhihi lahayna kadib structure kadib waxaa ka raadi lahayna suuqa selkaas oo maadaama 4 hour premium joogo selkaas toosaa ka raadi laakiin still anaka ma ku kalsoonaa karno maadaama aan ku kalsoonaa karin jihada oo 15 minute oo baayiga ahayd aan raacsan wanis oo soo isgidiyo 15 minute maxaa ka raadi karnaa maalinta waxaa ka raadi karnaa baaya ka raadinayna sababtuna waa maxay mar walbo 15 minute wuxuu sheegayay structure meesha ku sameysama 15 minute wuxuu sheegayay baaya sheegayay mar walbo baayigaas aan kala jirsanaynaa even oo joogiyo 4 hour premium uu joogiyo sababtuna maxay weli ma isbedelin oo one maxaa ka raadi karnaa kiyaa ka raadi karnaa so wuxuu sameeyaa dhahaynaa structureka hadduu jibiyo kan hadduu jibiyo maxaa ka raadiyeynaa 4 hourka oo premiumku xaqiiq noqotaa dhahaynaa
so waxaa dhahaynaa marka wuxuu jebiyey oh what kan haddoo inta imaado oo kan jebiyo almost waxaa kasoo raadiyeynaa tirada meeshaas kasoo qaadanaynaa laakiin still kiyo u socdaa marka kanaa fiiriyeynaa maadaama kan luugaa soo cunay kama ku dhiilayna okay jiha meeshaan haseel ka raadi karnaa sigaxtaa bidi aaray bidi inkastoo baalka soo dhamaysan 15% hatoo meeshaan imaado laba midoo noqonaa ama inaa buubigan oo kaleeto inaa ka baay karee also buubigan oo kaleeto inaa ka bala karee laakiin baay korma qaadanaya maadaama markii ay saan usoo dhacdo oo liquidity inta laga qaado kadib jiha baay waa garaasi karaa sababtuna waxay mar walba liquidity haddayna lagu qaadin mar walba waxa priority ugu weyn maxaa waaye priority ugu weyn maxaa waaye priority ugu weyn liquidity inuu qaado waaye markaasaa target garaasadin marka inaa fiidigo fahamta rajeeya hataa ina fahmin xoogaa ku cesho haddaa intaan fahantid waa heesaa baayasna weligaa makaa dhumayo ma fahmi weysid qalqalna maku dareemaysid intaas clear bonta hadaa haysatid waxaas ma soo qoratay haddaan fiidiga sheeg si fiican u fahmine mar labaad fiirso mar saddexaad fiirso beginner hataata mar afaraad fiirso beginner hataata intaasaa kugu rajeeya waxa hadda sharaxayana waa general oo istiraatiijiyada ICT kaliya ma ahan waa general caadi ah marka videoga haddaa intaas u karto waa ku mahadsan tahay videoga noon laakare sidoo kale commentigaad waa noo dhiirigelin wixii caawinaadaha waa kula taaganahay every single one waa idin caawinaa bilaa shuruud sababtoo waxa kaliya maxaa waaye caawinaadtiina anina ajirna waa ka helaya sidoo kaleeto waxna waa ka baranaya adina inaa ku bartana waa ii muhiim marka videogana sidoo kaleeto subscribe no idheh janaalka dhehe insha allah waa kulanti dambo iyo video kaleeto insha allah hataa caafimaad qabno maalin wanaagsan habeen wanaagsan kalab wanaagsan wax walba taa ugu wanaagsan wasalaamu calaykum waraxmatullah wabarakaatu